السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن داوديال سو دوادا برنامج kale oo qurux badan iyo waliba Sufyaan Sheekh Axmed madaxweynaha mustaqbalka afar xaasle taakeeya sida u taqaanaanba waxaad naga daawanaysaan waa Baxar Saf Media mar kale soo dhaw Sufyaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وريا مال. Thank you very much. بهذا بحر صاف وسلامية ودوة. sidoo kale markii kuugu horeysay maahan aad Baxar Saf Media ka soo muuqatid in badan baad ka soo muuqatay Sufyaan waxaan rabnaa in aan ku weydiino su'aalo kooban kugu badin weyno waxa jirtay in aad waday olole ah in aad noqon rabtid madaxweynaha mustaqbalka ololihi xaquu ku dambeeyay ayaantaan ma aragna saansaan ah in aad ololihiisii wadaan. Well, وريا مال مركل هذا المحسن تهاي أولوله واودنا نعيب فرق بدن وليه هاي وحكس عذا لمان مالك الدوان ودن كان الصومالي كم إذا وحان بلون هذا إن سماينو إن لسنو حزب جينا كلسنو دكموين كيو مقالوين كصوماليا سيدا مقالوين كهذا أنكو جوري سنو حكم ذاك اسماء وهذا ودن بيسي وحفيزكي بريهان شغل سنكو جرني لاس عنود ماشي اللي يراهدو بوساسو هرجيسا بربرة عنده بربرة عندنا برعان يراهدو مقدشو بايدابو المركا وحاولنا كامبينكي إنه معنا إن ما دام وحكور هذين إنه قضية إيو دين إن ودن كوكما ملان ربنا وحان هذه جير كامبينكي إن أنتوا وحوك بدنيا دا إن شعبك أن هانو شعبك إنك صورة دعنو مركا أنتوا وحوك بدنيا هاي وحا إلهي ما ديس إن هنا شعب بدن ضد بدن ونصورة عيوة من سن فكر كينا فكر كإسلام كأمين سن فكر كينا ما هني ربوا ودنك إن دستور كإسلام كله قدقو مركا الحمد لله أنتي هراء أدوك في عيني. سنا أقولنا هاي بمركا هراء إن حبناها إن جروب قاعد كتر سنتهاي أديك وكلي اللي جوار كجري إن ورئيسي هراء عادي سين واحد كلا واحد سي إن حبناها كلا إيه سنصوم وخندون إلا أديك عاد ماشي كبحثت أما إسبدل كلوي معه إن مدام عاد حفيسية سميسين حبناها ملقيها بإن أي ورباهين تكسر مقطن. هو absolutely وكل جيران in fact هذا بيج كتلو كنا لدى تكتيد وكبوحنا يجو statement سمينا يجو شعب كله الله يجو دتكو هم بلينا يجو ضحية وحن كملنا حسب كتلو كنا قريتان موقال إن عوال بابا مركا دتك معناها أن إري مصابيح دونان أنت أما أنوجو أن معناه أنت كجاري إنه ماشي أنا ربنا قرش أنو دكسن ودتك جودك الدحى جودك يسوع أبابولي اسمه وحنا إلا أي لبعض سنة صوب سميني باريتانكا أما هاتو عالنكا أما دستوركا أما رقمدي الصومالية أما تاريخ الصومالية ودتك لكن هذا قفك كوسو بيره شروط ده واحد كجرتها مركو قفك إن لأوجيه ولا يقانو أنا وحبا قرصما إنه ودن كحرمنا دستورك إسلام كإنه جماملو دستور كان قال ذي هذا هنيسنو إن ماشى لقى سعران رمنا وحنا نمقرصنا بنا كان تاجنا دولة waxay ku shaqeysaa 4.5 tiina ma ka duwanaan doontaa dawladda hadda jirta iyo kuwii soo jiray absolutely 4.5 waa diinta islaamka soo horjeeda Allah subhanahu wa ta'ala ma dhihin in akramakum inda Allah rirbil Allah wuxuu yiri in akramakum inda Allah atqaakum meel ay diinta islaamka iyo dhaqanka fiican iyo aqliga bini'aadamku saxda uga jirto ma jirto in madaxweynenimada wadanka qabiil gooniya ama qabaa'il gooniya ay geeyaan qabiilada qaar koodna aysan geeynin meel ka soo tagaan macnaha in qof Soomaaliya because dhalashadu u dhashay reer hebel in uu uga qoosto ama mamnuuc ay uga tahay inuu madaxweyne noqdo waa wax diinta islaamka soo horjeeda waa wax wadanka ka soo horjeeda waa wax aysan suurtagal ahayn inta aan haysan nidaamka noocaasa wadankeena Soomaaliya inuu la tartamo wadamada kale caalamka jira waana waxa aan rabno reer talku noolaadaanahay qaybta koorku waxyaabaha ugu waaweyn oo aan rabno inaan tartanka ku jira campaign-kiina ma gaaray Somaliland. Oh, absolutely. Somaliland taageerayaasha ugu badan ku leenahay burco iyo hargeysa ilaahay mahadiis weeye dad fara badan anaga taageeray social media ku jiraan ayagoo hadlaya ayagoo ka soo hadlay burco iyo hargeysa iyo meelo kale oo fara badan runtii Somaliland aad u taageersan yihiin Somaliland sidaan ognahayba waa gooni goosad haddii aad ku guuleysataan madaxtinimada dalka sideed uga dhaadhicin doontaan in ay mid ka noqdaan. Well, Somaliland waxay rabaan inay goostaan laakiin ma aysan go'in wali waa Soomaaliya ka tirsan yihiin waa Soomaali xaqiiqdii waana dad Soomaaliya oo macnaha Soomaali markaan leenahay xataa marka ay abtirsadaan ama dhalasho ay ka hadlayaan waxay ku tagaan Soomaali ku tagaan magacooda waa dad Soomaali waxay tabanayaan waxyaabo dhibaato ku haya jira مثلا caalankan oo kale in la bedelo anaga treatal ku noolaadanahay horaan u sheegnay waa bedelayna caalanka
مثلا إن لسيو مقدو وكالتو ديار أنها مقدو ناسينو because ومدنيين because دولة دي جرتا حسوق ذا يجا هدي دولة دو أي حسوق ذا قبيل كاس وإن مقدو لسيو سيد عادي كا إن لجرها لقولي وحي كل عاي ديار أولا نهاي إن أن لفر لسنو أو أن لقلنا وذا هذا الله وحكلية أن أنا وكتنا زول كرين مرنبا أنا بناك دي كرين والدستور كإسلام كا أنت كسو كيسا دولة صوم ولا عليهم سوماليلاند waxaan diyaar u nahay wada jirka wadanka iyo Soomaaliya in mid ahaato ayaa nooga muhiimsan waxyaabaha kale oo dhan intaan ka inta suurka islaamka sideed iyaga kaliya u siinaysan magdhow maadaama ognahay in Soomaaliya oo dhan ay isxasuuqday ay dhibaato isku geysteen wariyaamaal way kala jiraan qabiil dilay waa gooni laakiin dawladdu dadkii ay xasuuqdo awoodii ciidamadii qaranka lagu xasuuqay magdhow way leeyihiin وانا عالمك wax ka jiro oo aan qofna inkiri karin way marka way jiraan qabaa'il kaleeto oo sidaas oo kale loo xasuuqay oo dawladdu ay xasuuqdo waa jiraan ayaguna magdhowgooda leeyihiin hadii macnaha hadda laakiin waxaan ka hadlaynay arinta Soomaaliland saasan waxa leenaynaa magdhow waa qasam in la siiyo waayo kumaan qof inta la xasuuqo in la iska iloobo micnaheedu waxa weeyaan berito aan ku celinayna si marka aanan berri ugu celinin oo ay taariikh qoran u noqoto shacabka ama bulshada soo socota aan ugu ilaalino waa in dadkan la dareensiyaa inay leeyihiin magdhow in la raali galiyo si xanuunkaasi hadhow dawlad kasta oo tilaabadaas qaadaysa ama madaxweynihii tilaabadaas raba inuu qaado uga fakaro uusan u sameyn waa tahay aad baad umahadsan tahay Sufyaan waraysigeena aan ku sii shaqeynaa waxaa tahay nin leh 4 xaas absolutely dawladan aad rabtaan inaad soo dhistaan haddii ay dhacdo sidaad rabtaa inaad ku maareyso 4 xaas maadaama ay leedahay marwada koowaad mise waxaad doontaa midii ugu horeysay gursadtii labaad iyo wax noocaas diinta islaamka ma jirto wax la yiraahdo marwada koowaad iyo marwada labaad iyo marwada saddexaad anagu dad islaam aan nahay waxyaabahaasi waa waxyaabaha laga soo minguriyay dhaqamada gaalada ka yimid weeyaan marka dawlad islaami haday timaado marwa koowaad iyo marwa labaad iyo marwa saddexaad midna ma jirto so macnaha arintaasi dib nagu ma haynaysa anaga waxaan rabnaa oo dhiirigelinaynaa shaqsi kasta oo Soomaaliya oo awood leh nin kasta oo Soomaaliya awood leh inuu guursado intii Allah subhanahu wa ta'ala u baneeyay gabdhuhuna ay fududeeyaan guurka waa dhiirigelinaynaa shacabka dan ugu jirtaa wadankeena dan ugu jirtaa waxay dan ugu jirtaa dhismaha wadankeena horumarka wadankeena dhaqaalaha wadankeena iyo awoodda islaamka intaba ma waxaad leedahay in xaasaska la badsado waxay dan ugu jirtaa dalka of course sidee bay ugu jirtaa tusaale haddaan ku siiyo marka ugu horeysa waxaan ka fiirinaynaa 3 dhinac waxaan ka fiirinaynaa dhinaca dhaqanka diinta islaamka waxaan ka fiirinaynaa dhinaca dhaqaalaha waxaan ka fiirinaynaa dhinaca awoodda midda koowaad waxa weeyaan waxaan wada ognahay maanta banaanka yaalo oo qarsoonayn in halkiin ay ku soo aadayso 7 gabdhood toddobadaas gabdhood marka su'aasha ugu horeysa waxay tahay hadii ninkii hal gabar kaliya uu ku ekaado ama hal dumar uu ku ekaado lixdii kale tuya guursanay waa su'aal u taala shacabka Soomaaliyeed ka jawaabaan calafkooda ma jirto wax la yiraahdo macnaha xisaab waa waxaan math waa hal toddoba ka soo horjeeda hal xabaad guursan lix banaanka taal lixdaasi waxay u baahan yihiin rag guursaday u baahan yihiin wadamada qaarkood hadda wadanka Liibiya oo kale la yiraahdo aan dhaho Liibiya wadanka la yiraahdo Nigeria wadamo badan oo caalamka waxa ka jira dhibaatooyin guurkiya oo gabdhaha ay guur la yihiin oo hadda maanta social media dadka u furan marna gabdhaheenu inaan maqalno cabaadkeed oo iyo inay macnaha gaaraan xadadka qaarkood oo dadka ay gaareen soo shacabka ku dhaqanka diinta islaamka iyo danta Soomaaliya dhinacaas uga jirta dhaqaalaha aanu aan shacabka Soomaaliya dadkooyi wadankan iska lahaa qaar badan oo kamid ah banaanka yaade dada wateen dawladaha wateen si ay dhaqaale lacag uga sameeyaan shacabka oo bataahi micnaheedu waxa weeyaan canshuurta badata dhaqaalaha bata iyo wadankii wax soo saarkiisa bata waa dhinaca dhaqaalaha dhinaca awoodda islaamka iyo awoodda wadankeena Soomaaliya hadii mesela wadankan Kenya hadda joogna mesela aan tusaale ku siiyo haddaan ku socono sida aan ku socono waxa la qiyaasay 35 sano hadda kadib madaxweynaha wadankan uu noqonayo qof Soomaali micnaheedu taas waxa weeyaan population ama tiradu waa awood inay dadku bataan awood weey marka gabdhaha Soomaaliyeed guurka fududeeyeen wiilashuna guurka badiyeen dhaqaalaha wadanka sharafta islaamka iyo awoodda islaamka inta badan ugu jirta si fiican hadii aad ku guuleysataan madaxtinimada dalka muxuu yahay qorshahaaga adiga ka madaxweyne ahaan adiga u tartamaya madaxweynaha ka madaxweyne ahaan muxuu yahay qorshahaaga sidee rabtaa in aad ku dhaqdaan dalka marka laga soo tago diinta islaamka waxa jira waxyaabo badan daldalal badan qoondadii dumarka
anagu haddaan reer talku noolnahay waxaan qornay nidaam cusub waqtigii ugu horreeyey ilaa intii waddanka Soomaaliya uu jiray oo dawlad ahaa taasna waxaan ka wadnaa macnaha xataa markaad u laabatid boqortooyinka hore markaad u laabatid nidaamka cusub oo qornay wuxuu leeyahay 3 branch ama 3 qaybood oo dawladdu ka kooban tahay ama 3 hoggaan aan dhahan hoggaanka fulinta hoggaanka maxkamadaha iyo hoggaanka qorsheynta saddexdaas hoggaan ku darsami karahay ma jiro waxaan ugu talagalnay inaan ilaalino waxa la yiraahdo musuqmaasuq wadanka inuu ka dhicin xilka inaan qof isku dhijin inqilaab wadanka inuu ka dhicin inay dadku ku kalsoonaadaan wadankooda waa sharaxnay shacabka Soomaaliyeed waa la wadaagnay waa ogyihiin waa cusubon keenay waxa soo haray waxa la yiraahdo qoondada dumarka iyo 4.5 haddaad mar qoondada dumarka taagan tahay wali 4.5 aad taagan tahay macnaha meesha ku jira waxa weyn waxa soo haray qoontada dumarka mar haddaad tiraahdid qoontada dumarka waxaad meeshii wali ku haysaa 4.5 macnaha in ay jiraan dad gooni ah oo wax gooniya iska leh waxa imaanaya marka shacabkii inuu yimaado in la ishaybta kooro in lagu tartamo wax aan diinta islaamka ahayn in lagu tartamo wax aan ahayn awoodi gabdhaha islaamka ah meel oo Soomaaliyeed sharafta iyo karaamada ay leeyihiin waxa ilaaliya Allah subhanahu wa ta'ala diinta islaamka lagu ilaaliyay wadankuna hadduu islaam noqdo ayada lagu dhaqay marka waxaad leedahay in dawladdiina dumarka ma mid noqon karaan ma aanan dhihin dawladdeena dumarka waxaan leenahay dawladdeena islaamka ay dhalanaysa meesha Allah subhanahu wa ta'ala uu ugu talagalay macnaha islaamku waa dastuur dhameystiran weey dastuurkaas dhameystiran qof walba meel u leeyahay meeshii dumarku ay lahaayeen shaqadii macnaha wixii Allah u design gareeyay sidii Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu talagalay ay qabanayaan meeshaas maxaa kamid ah gabadhu inay wax baran karto inay wadankeeda u shaqeyn karto iyo wixii la mid macnaha ma aha gabadhu dawladda ka mid noqon karto ma dhihin waqtigii rasuulka sallallahu alayhi wasallam gabdhuhu marka dagaalka la aadayo waxay caawi jireen dagaalkay caawinayeen waxay biyo u qaadayeen ragay daaweynayeen takhaatiirtay ahaayeen raashin bay qaadeen macnaha gabadha islaamka ahi meel uga sharaf badan diinta islaamka ma jirto absolutely waatahay aad u mahadsantahay Sufyaan Sheekh Axmed waan rajaynayaa daawadayaal inaad ka bogateen barnaamijyo badan waan idin soo wadnaa waxaan idin leenahay barnaamijkan mid ka xiga intaan ku kulmi doonaa aniga Sufyaan isku duwan waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo